qaarka tuutaha wata waa la yaqaane ragga qaar aan la garanayn laba military attaache ah ayaa halkan fadhida oo uu ka mid yahay duqii horo yaa Cismaan Dubad oo aad wada garanaysaan ninkan military attaache-ga dowladda Djibouti waay ee Soomaaliya u fadhiya dhamaantii waa idin salaamaya salaan kadib aniga waxaan rabaa wax yar inaan uga faa'iideysto halkan gudoomiyaha gobolka ee gogosha dhigay ee dadkan intaan leeg isu keenayna waa u mahad celinaynaa niyow haddaan la iska warsan meeshii bahashulaada ay oo aan dadka la isu keenin waxa uma qabsoomaanba waa kaaga mahad celinaynaa in dadka isu keentay oo aad tiri warbal aan tashanno arrintaasi muhiimad gaar ah ay leedahay waxaan rabaa dhowr arrimood inaan isweydiino horta jabitaan la jabo iyo iska horimaad lagu jabo laba macnay kala leedahay iska horimaad maalin qolo waa la ciirsan karaa sooma maalin xaaladdu si waa noqon kartaa aan isweydiinaa ma jabnay mase iska horimaadna horta nalooga adkaaday iska horimaad maalinna miyaa nalooga adkaa mase waa jabnay iska horimaad wey iska horimaad maalinha aan ku yar liicnino gacmadaysina waa ii muuqdaa oo in la gacmadaysta aad moodo saa maaha sidaa maaha baashu nimanku miyayna nimankii ahayn aan ku heesaynin oo aan buuraha tilaabina miyayna ahayn nimanku waa nimankii ayagu dibay isu soo abaabuleen markaasay hilba nagala hareen soo ma oo adeer annagoo hal iska horimaad xoogaa ku yar liicnay inaan gacmadaysanna maxaa kalifiya wallaahi bilaahi tallaahi waa anigaa dhaartay midabkuu raba ha lahaado ku darin mayo ciidamada admis ma ku darayo ciidanka Soomaaliyeed ee ama military ha ahaado ama boliis ha ahaado ama ha ahaado macawisleey qoriga beledweyne yaala wallaahi bilaahi tallaahi inuu shabaab ku aado waa ku aadaa shabaab gudoomiye inaan isu marxabayna xabban lagu tarimayo qoriga beledweyne yaala shabaab waa ku aadaa aan dagaal aadno adaana hadda kaar wateenna horgal cirfahankaa istaagaynaa aniga waa ii cabiran yahay al-shabaab waa fakir iyo qarax waxba kala ma haystaanba fakeray dadka gashtaan iyo qaraxay ku dhuftaan ay ku qalqalgeliyaan waa un labadaas war qaraxana sabanaan haysanaan isaga dhifanaynaa ayagoo baadil sheegahayba dadkii ku qanciyeene annagoo xaqiiqo sheegayna seen dadku u qanci weynayna nooga adkaanaya loojig maaha horee bowdadan waxbaa ku jire maxay tiri gabadhayda loogama dhali weyn soo ma yah oyaa waxbaa jire waxa jira ma ii sheegaysaan anu ayaamaha waa idinka maqnaaye yah labadiisa muddo 2 sano ku dhow idinka maqnaaye waxbaa jire maxaa jira maxaa isbedelay nimanku waa nimankii annagii baan nahaye yah nimankaan ku heesi jirna sooma mambucjisaan ugu dhacday aniga waxaan qabaa waxaan soo jeedinayaa horta galabta dagaal inaan go'aansano inaan shabaab dagaal la galno galabta inaan go'aansano haddii alla idmo oo idinka ilaahay ku noqoto waad arki doontaan ayagoo caana ka tifqayaan oo baqanaya dushooda waa idin tusaynaa mar haddaad dushooda qabataanna soo noqon mayaan soo maa arrintaa galabta aan go'aansano oo noo go'aamiyana mayaho oo guddoomiyahu noo go'aami oo saraakiishii ciidamada militariga oo fadhiisaane galabta noo go'aamiya dagaal shabaab inaan galno annaga da'daanaan joognaa sharaf darra kuma noolaan karno lacag la'aan waa la noolaan karaa maxaan ku yidhaa xitaa adoo cuuriyaana waa la noolaan karaa laakiin sharaf darra lama noolaan karo waryaaya ma sharaf darraan ku noolaana annagoo sidaan u naalla
mase sharaf baan ku noolaannaa naftaan ilaahay baa xukumee annaguma xukunnee horta nafta yaa xukuma nafta soo ilaahay ma xukumo oo maan ilaahay iyo naftan uuna geliyo isu dayno nimankana maan wax iska niraahdo galabta waan jeclaan lahaa inaad noo guddoomisaan dagaal inaan aadno oo laygu qaato gaabta inaan dagaal aadno war gaabta ballan ma noo tahay inaan dadkeenna abaabulo shabaab la dagaalanno yaa haadu dhinacaan bas waa dhinacaan shib bay u taallaa milatariga waa liigayaa maxay tahay yaa aad iyo aad aad u mahadsantihiin arrinkaasi waa kaas tan labaad guddoomiye dadka qalbiyadoodu hadday kala tagaan xooggoodu isuma iman karayo gacmaha lala galay dadka gacmahaan inaan ka bixinaana laga rabaa oo liista uninka ka dhigno sidaa inaan ka dhigno ayaana laga rabaa muhiimadda ugu weyn ugu horraysa wabiirkaa badan kelmaddaa wabiirku waa ugu cusubtaa wax loola jeedana ma aqaan dadkoo sheegayaan arkin nuxurkeedana ma aqaan waxaan aad ugu faraxsanahay korneyl sagaal cabdulle intuu inuu fadhiyo isaaq maalintaan ilaahay tala saaranoon xuduudda feerfeerinta ka gudubnay ee dowladda etoobiya halka aan ka soo jiraynayn itaalkeen intuu leeyahay kaa waa ogeen maanta waxaan leegnaa adiguna ma dhimanana ma dhimo weli waa noolna cidda horkac cidda dadka horkac khibraddeedna waad leedahay waan ku halla horkaco dadka noo